maxaad kala socotaa waraysigii xiisaha badnaa ee weekend ee Sugar iyo lejanka kooxda K-popka ee Big Bang ninka lagu magacaabo Taeyang dhibkii ay ka mareen Hesta 5 ee uu la daadihinaya ninka la yiraahdo Jimin iyo xogo xasaasi ah uu gabi ahaanba ka sheegay kooxda BTS marumba in garabka uu dhaawac ka soo gaadhay Sugar ama baninka loo yaqaan Yongi muxuu yahay macnaha ka dambeeya sawirada baraha bulshada la wareejinayo weekend ee uu leeyahay xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka loo yaqaan Sugar. It will be really hard to keep going without BTS since most, if not all, of Big Hit's content for the last 9 years has intaas iyo qodobo kale xiisla ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo la garanaya subscribe dhahay oo ku soo biiray YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsan idin saaxiibayaal waxaa baraha bulshada qabsaday gaar ahaan trendiga Twitter-ka labadii casho ee u dambeysay waraysiga xiisaha badan iyo barnaamijka taxane ee uu hogaaminayo xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka loo yaqaan Sugar kaas oo uu la yeeshay dhigiisa fanaanka kooxda Big Bang iyo ninka loogu yeedho Taeyang. Sugar ayaa dhawaan bilaabay inuu sameeyo muuqaal gogoosa oo ku wareysanaya idoliska iyo xidigaha sida weyn caanka uga ah dhanka iyo K-pop iyo muusikada koonfurta Korea waxaanu ka kooban yahay barnaamijkani kaftan iyo fadhi ballaadhan cabitaan lagu cabeeyo halkaasi su'aalo dabiici ah sida in qofka laga wareysto noloshiisa waxyaalaha uu xiiseeyo ama halganka uu ka soo maray nolosha wuxuuna ugu magac daray taxanahan ama barnaamijkan oo hadda maraya xalqadii 3aad Sachwita. barnaamijkan ayaa hore loogu arkay isagoo ku wareysanaya xalqadii 2 ninka isku tiimka yihiin iyo fanaanka kooxda BTS ninka loo yaqaano RM. maanta oo la marayo xalqadii 3aadna waxa uu ku soo qaatay episode-kan lejanka sida weyn loo jecel yahay iyo main dancerka kooxda Big Bang ninka loo yaqaano Taeyang. Sugar ayaan bilowgiiba qarsan sida gabi ahaanba ugu faraxsan yahay inuu la kulmo Taeyang iyo shakhsi ka socda gabi ahaanba kooxdii magaca weyneed ee la odhan jiray Big Bang. Yongi isagoo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yidhi waxaan ahaa taageer aad u jecel kooxda Big Bang ilaa iyo dugsigaygii dhexe anigoo qura ma aha xataa kooxdeena BTS waxaan xasuustaa inaan galab u soo baxnay damaashaad iyo jawi bedelasho waxaan ku soo qaadanay muusiga qaaska ah ee Hesta Blue ee Big Bang. qof kasta codkiisa ayuu tijaabinayay annagoo isticmaalayna muusiga iyo heesta ay leeyihiin Big Bang waxaanan ahayn ayaan odhan karnaa dhammaanteen dad jecel amaba taageero ah isla tiimkaasi xataa Jimin wuxuu ahaa mid isku dayay inuu koobagereeyo amaba keeno codka fanaanka kooxda Big Bang ee loo yaqaano G-Dragon waana markii gabi ahaanba ninka loo yaqaano Taeyang uu dareemay sida aanu isula weynayn ninka la yidhaahdo Sugar amaba uu yahay qof hambala waxaanan odhan karnaa gabi ahaanba midaasi oo mid ay ka siman yihiin gabi ahaanba 7 xubnood ee tiimka BTS inay kala saareen gabi ahaanba shakhsiyadda iyo caanimadooda. meelahaas markii ay maraysay ayuu Taeyang isku dayay gabi ahaanba inuu hambaliyo BTS sidoo kalena amaano waxqabadka quruxda badan ee ay gaadheen sanadihii gabi ahaanba iyagoo ay ka maqnaayeen saxadda baraha bulshada isagoo sheegay inay yihiin koox dhabar adeeg leh sidoo kalena uu soo samray gabi ahaanba halka ay marayaan. Taeyang wuxuu dhawaan ku soo laabtay saxadda baraha bulshada muddo ku dhow 6 sano oo dabku ka dhacsanaa gabi ahaanba kooxdiisa Big Bang ama baan idhaahdee ay ka maqnaayeen saaxadda heerka faneed ee lagu yaqaanay waxaana uu ka hor soo qaaday heesta quruxda badan ee la yiraahdo 5 ee uu la daadihinaya xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka loo yaqaano Jimin waxaanu yidhi isagoo ka hadlaya heestaasi iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Jimin runtii waa shakhsi cajiib ah waxay ahayd waxqabadkii koowaad ee aan wada samaynay labadayadu ama baan ka wada qayb qaadano waxa uu dareemaya xanuun dhanka murqaha ama adimada markaan samaynay muuqaalka dansiga live-ka ee heesta haddana
waxa uu diiday gabi ahaanba inaan dib u dhiganno muuqaalka amaba aan dubno mar kale ilaa aan gabi ahaanba ku guulaysanay inaan dhammaystirno isla markaasi maalintaasi waxa uu noo caddeeyey Jimin gabi ahaanba inuu yahay qof adeeg leh misana samraya waana midda gabi ahaanba aan ku aqoonsanay tiimka BTS inay leeyihiin waayo halkani maba ay soo gaadheen haddii aynay middaasi samaynaynin samirko waa lagama maarmaan halka markii ay maraysay ayaa waxaa hadalkii la wareegay ninka la yidhaahdo Suga waxaanu ka sheegay dhowr arrin oo gabi ahaanba uu sheegay ninka la yidhaahdo Jimin inuu ku caawiyo tiimka iyo kooxda BTS isaga la'aantiina ayna dhaqaaqdeen waxaanu la wareegay hadalka isagoo isbarbardhig u samaynaya xidiga iyo fanaanka kale ay kooxda ku wada jiraan ninka loo yaqaan Jungkook oo aan oran karno sina waa u dhaliilay sina waa u amaanay Suga isagoo tilmaamaya middaasi waxa uu yidhi Jimin ma aha dadka yaqaana dib u dhigashada iyo sidoo kale bari ayaan samayn doonaa halka taa beddelkeedina uu ku cambaarayay Jungkook isagoo muuqda qof la kaftamaya gabi ahaanna uu ku sheegay dib u dhigasho badan iyo caajis waxaanu yidhi Jimin waa mid ka duwan gabi ahaanba xubnaha kale gaar ahaan Jungkook mar kasta Jimin waxa uu sameeyaa hard work iyo dadaal badan sidii gabi ahaanba shaygaasi ugu soo bixi lahaa number 1 halka taa beddelkeedana uu ku tilmaamay Jungkook mid wax kasta ula muuqdaan fudayd sidoo kalena loo filayay inuu yahay caajislow balse Jungkook isagoo ka hadlay ayuu yidhi uma jeedo inuu yahay qof liita balse waxa uu leeyahay talent iyo hibaan cidna waxba ka qaban karin wax kasta waa fudayd balse Jimin waxa uu sameeyaa practical badan xilliyada cod qabashada iyo aan samaynayna heesaha waxaanu geliyaa practical badan in ka badan cid kasta halka Jungkook wax kasta ay isu yihiin aan u baahnay practical inuu bixiyo sidoo kale dadaal isagoo hurdo ka soo kacay barnaamijku ka qayb gali karo sidoo kale waxaa jirta dhawaan sawirkii absaday baraha bulshada oo uu soo geliyay Suga kaasoon hore looga baran gabi ahaanba inuu qaawani ku soo galo pictures noocana misana soo geliya bartiisa Instagram-ka isagoo gabi ahaanba dadka ku xidhan xajmiga ay leeyihiin sawiradan fanaanka ayaa u muuqday gabi ahaanba qaar iskani ah amaba aad u dhuuban waxaasoo dhanina waxaan odhan karnaa waa wax iska caadi ah balse waxa buuqa sawirka gabi ahaanba sii sameeyey amaba keenay in la buunbuuniyo Said shaashka ama waxyada dusha ka saaran oo qariib ahaa iyo in garabkiisa nabar casaan oo aad u weyni ka soo muuqday waana midda keentay gabi ahaanba in loo fakaro waxa uu isticmaalay Suga caleemaha uu saaray garbihiisa si uu ugu dadiyo amaba ugu qariyo nabarka ka muuqda middan oo gabi ahaanba ku beertay walwalaado badan taageerayaasha sida waanu jecel fanaankan si lamid ah waxa ay gabi ahaanba abuurtay buuq iyo buunbuunin sawirka xilli uu baraha bulshada qabsaday muddooyinkii u dambeysay sidaas oo ay tahay ayay haddana qaar ka mid ah taageerayaashu soo saareen qoraal ay soo gelisay baraha bulshada 2020kii shirkadda Big ee iskala kooxda BTS qoraalkaas ayaa waxaan odhan karnaa waxa uu dhignaa sidan hello waxaan nahay Big waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno xog ku saabsan dhaawaca garabka ee Suga kaasoo ku jiray ilaa November 3 haddase waa uu fiican yahay waxay dhaqaatiirtu siiyeen waqti nasasho ugu dambeynse waxa uu noqon doonaa mid hagaagsan ama xaaladiisu ay fiicnaato This scar came from the time he had to undergo surgery due to the intense pain in his shoulder. mar kale ayay haddana taageerayaashu soo heleen qoraal kale oo tilmaamaya Suga isagoo leh first of all hadda waxaan dareemayaa xaalad kale xanuunku waa mid damaq leh waxaa la sheegay dhaawacan inuu gabi ahaanba soo gaadhay markii aan yaraa nasiib xumo ima ay suurtagelin inaan qaato qalin ku habboon waqtigaas waxaan sugayaa xilliga ku munaasibka ah hadda waxaan ku jirnaa xaalada saxmad iyo buuq badan markaan dhammaysano showga nagu soo aadan ayaa geli doonaa isbitaalka gabi ahaanba si aan u maro qalinka waqtigaasi waxay ahayd 2020kii balse mar kale ayaa sawirkani dib loo soo xasuusiyey dhawaan gabi ahaanba qabsaday baraha bulshada dhacdadii dhacday 2020kii What do you want to do? Maybe 36.
fanaankan waxaa lagu dacayday inuu yahay shakhsi gabi ahaan baad u dhuuban amaba ka dhuuban xidigaha kooxda BTS haddiiba aanu ka sii dhuubnayn xataa xidiga lala barbardhiga mararka qaar ee loo yaqaano Jin oo la ogyahay isaguna inuu aad u dhuuban yahay wuxuuna sheegay sababta ka dambaysa midaasi inay tahay gabi ahaan baynaanu awood badan u lahayn cunista wax badan balse taa beddelkeeda uu jecel yahay cabitaan badan wuxuuna midaasi tilmaamay mariyaga oo cuntaynaya xubnaha kooxda BTS oo dhan sidoo kalena J-Hope fadhiya dhinaciisa si waalana wax u cunayo ayaa waxa uu ku yidhi maad sidayda oo kale wax u cuntid amaba aad qadaysid waxaana ahayd waqtigaasi waqti adag oo ay lahaayeen bandhigyo iyo showyo kala duwan oo gabi ahaanba isku xigxiga sidoo kalena looga baahnaa practical ay shaqo culus balse Yongi isagoo qoslay ayuu afka geliyay salad weyn iyo qudaar kadibna dabadda ayuu soo saaray waxaanu yidhi ma waxaad rabtaa inaan sidan oo kale wax u cuno maya ma raba inaan sidan wax u cuno waayo ma haysto umateedaan wax ku cuno amaba igu filan marar badan ayaa sidoo kale la arkay xilliyada cuntada isagoo fadhiya goobo ka baxsan halka ay joogaan tiimku haddaba dadka ka falceliyay sawirka uu soo dhigay Yongi ayaa u qaybsamay laba qaybood qayb ku kaftamaysa oo ka xaraabaysanaysa iyo qayb gabi ahaanba ka xumaaday garabka nabarka kaga yaala waxayna leeyihiin qaybta hore haddii baanad lahayn fiidho waaweyn amaba jir aad u dhisanood ku faanto maxaad ku fashay sawirkan qaawan ee aad soo gelisay halka qaybta labaadna ay leedahay gabi ahaanba waxa uu rabay inuu natuso amaba ina dareensiiyo dhaawaca soo gaadhay balse dhaawacaasi waxaa loo arkaa nabar gabi ahaanba tolla balse goobto ay markaasi ahayd casaan anyway idol kasta ama fanaan kasta uma habboona buurnaanto waana waxaa adduunka wakhtigani laga ordayo u buurnaanto dadka sameeya daansiga iyo ciyaaruhuna waabay ka sii xag jiraan oo looguma talagelin inay cuslaadaan haddaba aan isla adiga su'aal ku weydiiyo buurnida iyo dhuubnida midda ayaad u aragtaa inay tahay mid wanaagsan sidoo kale midda ayaad jeclaan lahayd adigu inaad noqoto qof dhuuban amaba qof buuran intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenna maanta oon kaga hadlaynay xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka loo yaqaano Suga ha ilaawin inaad fikirkaaga muuqaalkaad jeceshay inaan ku xigsiino midkan iyo wixii dhiirigelinaa intaba igu dhaafta qaybta hoose ee comment sectionka like-ta subscribe-ta iyo share-ta waa waxaan ogahay gabi ahaanba inaad adigu deeqsi ku tahay ana waxaa inoo ballanaa halkan inaan soo gelin doono muuqaalo aad u qurux badan oo aan hubo gabi ahaanba inay idin cajabin doonaan amaba aad u xiisayn doontaan nabadgelyo